bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal halkani waa warbaahinta xogta dalka daawadayaal kusoo dhawaada qodobada ugu xiisaha badan ee warka aan idinkugu soo gudbin doono. xaaf oo la heshiiyey dowlada federaalk Soomaaliya kana baxay heshiiskii ahlu sunna kuna dhawaaqay doorasho ka dhacaysa Galmudug. xukuumadda federaalk Soomaaliya oo go'aan culus ka qaadatay khilaaf hor leh oo ka dhashay Galmudug. maamulka Puntland oo xirtay xubno ka tirsan beel shaacisay in ay qaadatay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo qirtay inay guryo ay ka dhisi doonaan Muqdisho, Hargeysa iyo Mareykanka. Faysal Cali Waraabe oo ku baaqay in la gubo wiilkii calanka Soomaaliya ku xirtay magaalada Hargeysa. Xasan Cali Kheyre oo ku sii jeeda magaalada Dhuusamareeb. dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay waqtiga la qabanayo doorashada maamulka Galmudug. wararka caalamka ee warbaahinta xogta dalkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona haweeney u dhalatay wadanka Iran oo la sheegay in lagu xiray dalka Mareykanka. intaad maqasheen daawadayaal waxa ay qodobadii ugu door karona warka xogta dalka. daawadayaal u diyaar garoobo warkay oo dhan. hadaba daawada hadii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe noo saar, like noo dheh, share noo dheh sidii saaxiibada warkii ugu dambeeyay Soomaaliya u gaaraan. aan ku bilaawno xaf. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa dowladda federaalka Soomaaliya heshiis la saxiixday iyadoona uu ku dhawaaqay in ay doorasho halkaasi ay ka dhacayso, sidoo kalena ahlu sunna heshiisyo uu la gala uu ka baxay. madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa ku dhawaaqay go'aan xasaasi ah oo lama filaan ah oo u muuqda in uu soo afjaray xiisadii iyo loolankii siyaasadeed ee Galmudug. Xaaf ayaana soo saaray qoraal uu ku sheegay in uu burburiyay heshiiskii u dhaxeeyay Galmudug iyo ahlu sunna والجماعة isla markaana la qabanayo doorashada madaxweynaha Galmudug. waxa uu sidoo kale sheegay inuu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug. madaxweynaha Galmudug ayaa dhinaca kale sheegay in doorashada Galmudug ay ka dhici doonto magaalada Cadaado isla markaana si wadajir ah ay u qaban doonaan dowladda dhexe iyo maamulka Galmudug. go'aanka Xaaf ayaa yimid kadib markii uu ka tagay magaalada Dhuusamareeb oo ay ka socdeen wada hadalada u dhaxeeya dowladda iyo ahlu sunna oo la doonayay in gibi ahaanba asiga laga taqlusiyo. dad ku dhow Xaaf ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay isagoo uu ka xumaanayo ahlu sunna isla markaana dad ku dhow Xaaf ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay kadib markii uu tilmaamay in go'aamo kala duwan ahlu sunna ay soo wadeen, iyadoona go'aanada hadda Xaaf uu qaatay dhabar jab weyn ee ku noqotay maamulka ahlu sunna wal jameeca. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa iyadana go'aan hor leh ka qaadatay khilaafka ka dhex taagan Galmudug, iyadoona khilaafyo kale ay soo baxayaan. warar haatan soo baxaya ayaa sheegayay inuu shaac baxay khilaaf cusub oo ka dhashay halka lagu qaban doono doorashada Galmudug. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in doorashada Galmudug lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. sidoo kale wasaaradda ayaa waxay shaacisay in doorashada ay dhacayso 4 bisha Juulaay ee soo socota. dhinaca kale madaxweynaha Galmudug oo ku dhawaaqay go'aan xasaasi ah oo u muuqda inuu soo afjaray xiisada maamulkaasi ayaa ka hor yimid go'aankani. war ka soo baxay xafiiska madaxweyne Xaaf ayaana lagu sheegay in doorashada uu aqbalay balse ay ka dhacayso magaalada Cadaad. arrintan ayaa abuuri karta khilaaf kale oo hor leh maadaama dowladda dhexe Xaaf iyo ahlu sunna ay haatan ku kala aragti duwan yihiin halka lagu qaban doono doorashada madaxtinimo ee maamulka Galmudug. Galmudug ayaa maalinta ka dambeysa waxay tahay mid xaalkeeda ay ka sii dareyso, waxa taasi ay u muuqataa mid dhibaato badan bulshada ay ku qabayso. waxaa dad badan oo shacab ah oo ku nool magaalooyinka Cadaado, Dhuusamareeb, Gaalkacyo gibi ahaanba ay ka dhowr sugayaan go'aanka saxda ah ee ka soo bixi doono xalalka dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda dhexe ayaa waxay doonaysaa in go'aan lama filaan ah ay ka qaadato xaalad kasta oo jirto, laakiinse waxay xaaladdu u muuqataa in ay maalinta ka dambeysa ay ka sii dareyso. go'aamada mararka qaarkoodna ay yihiin kuwa aan la isku hubinin oo go'aano kala duwan ay qaadanayaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. sidoo kale magaalada Dhuusamareeb waxaa ku wajahan ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa in maanta ay gaaraan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga ra'iisul wasaare Kheyre ayaa laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb, iyadoona ammaanka magaalada aad loo adkeeyay. magaalada Dhuusamareeb ayaa maalmihii la soo
dhaafay waxaa ku sugnaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo xubno ka tirsan labada gole. booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya iclaamisay in la qaban doono doorashada madaxweynaha galmudug 4 bisha soo socoto, islamarkaana ay ka dhaceyso magaalada dhuusamareeb, balse uu kasoo horjeedo axmed ducaale geelle xaaf, madaxweynaha maamulka galmudug. taasina waxaa si cad loo sheegay in ay tallaabooyin muhiim ah ay u qaadi doonaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ku aadan xal u helista dhibaatooyinka marka qaarkood ka jira qeybaha kala duwan ee bulshada. Faysal Cali Waraabe ayaa ku baaqay in la gowgibi ahaanba wiilkii xirtay calanka Soomaaliya kuna dhex xirtay magaalada Hargeysa. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cudinjireen Faysal Cali Waraabe oo ka hadlayay madal dhalinyaro oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaana waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ay isku haystaan inay xaq u leedahay in ay go'do. gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay wiil dhalinyaro ah oo ku libisnaa dharka calanka Soomaaliya bishii hore ee lagu xiray magaalada Hargeysa, kaasi oo sheegay inay ahayd in la gubo markii ciidamada Somaliland xabsiga ay u taxaabayeen. Faysal Cali Waraabe ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in dhalinyarada reer Somaliland loo soo adeegsado in ay wiiqaan qadiyadooda, waa sidoo hadalka u dhigay, isagoona eedeymo u jeediyay madaxweyne Farmaajo. waxaana uu sheegay in tallaabo kasta oo la qaadayo uu isaga uu ka dambeeyo, waxaana uu tilmaamay in arinka hadda jira ay maamulka Somaliland ay ku doonayaan inay tallaabo cad ay ka qaadaan dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay afgembigii fashilmay ee gobolka Amxaariya ee Itoobiya. war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay dowladdu ay aad ugu xun tahay dhibaatooyinkii kala duwanaa ka dhacay halkaasi, waxaana la sheegay in gibi ahaanba dowladdu ay ka xun tahay dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhacay wadanka Itoobiya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa gibi ahaanba waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in waqtiga kan halkaasi dhibaatooyin ay ka dhacaan, shacab badan ay aad dhibaatooyin ay u soo gaareen. waxaana uu sheegay madaxweyne Farmaajo in wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa qirtay inuu guryo ka dhistay magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Mareykanka, iyadoo muddooyinkii dambe la isla dhexmarayay in wasiirka maaliyadda Soomaaliya uu dhisanayo guryo fara badan oo gudaha iyo dibadda. ayaa waxaa arintaasi markii ugu horeysay ka hadlay wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. wasiirka oo la hadlayay mid ka mid ah warbaahinada magaalada Muqdisho ayaa qiray inay jiraan guryo badan uu leeyahay, kuwo kalena uu haatan dhisanayo. Mr. Beyle ayaana sheegay inuu markii uu ku soo laabto dalka magaalada Muqdisho uu ka dhistay guri cusub si uu ugu noolaado. sidoo kalena waxa uu tilmaamay inuu guryo qurux badan uu ka dhisanayo oo qaybo fara badan oo dalka ka mid ah. sidoo kale waxa uu dhistay 10kii sano ee ugu dambeeyay magaalada Hargeysa guryo aad u qurux badan ayuu ka dhistay. wasiirka maaliyadda ayaa intaa ku daray in guri kale uu weyn uu ku leeyahay dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Soomaalidu ay ku badan tahay ee Minneapolis. Beyle waxa uu iska fogeeyay inay dhammaanba hantidaasi ee ku soo gashay qaab musuqmaasuq, balse waxa uu xusay in uu shaqaystay 30kii sano ee la soo dhaafay, islamarkaana uu qabtay howlo kala duwan kuna samaystay hantidaasi. hadalkaani ayaa ku soo aadaya xili maalmihii dambe ay soo baxayeen dhaliilo iyo eedeymo loo jeedinayo wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. taasina waxaa lagu sheegay in wasaaraddu ay dhibaatooyin badan ay wado. taasina waxaa la tilmaamay in xalkeeda laga doonayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. maamulka Puntland ayaa xirtay xubno ka tirsan beelasha ciyay in ay qaadatay shareecada. ciidamada amniga dowlad goboleedka Puntland ayaa toddobaad ka hor magaalada Gaalkacyo ka qabtay 3 nin oo la sheegay in ay abaabulayeen shirka ka dhacay magaaladaasi oo lagu dhawaaqay ku dhaqanka shareecada Islaamka. sida aan xogta ku helayno, shirkaasi oo lagu qabtay magac beeleed ayaa dadkii ka hadlay waxay sheegeen in beeshooda ay qaadatay ku dhaqanka xukunka shareecada Islaamka, waxaana ay bulshada kale ugu baaqeen in ay hirgeliyaan nidaamka ku dhisan sharciga ay hayaan. sida uu hadalka u dhigeen 3 nin oo loo xiray in ay soo abaabuleen ayaa waxaa la sheegay in ay maamulka Puntland ay gacanta ku dhigeen 3 nin oo magacyadooda lagu sheegay Maxamed Yaasiin Cabdi, Nabadoon Deeq Cabdi Cabdulle iyo Sheekh Saciid Cabdiraxmaan Maxamed oo kamid ah imaamyada caanka ah ee masaajidka magaalada
magaalada Gaalkacyo. Ciidanka amniga dowlad goboleedka Puntland ayaana xubnahaani u wareejiya xabsiga ciidamada Puntland ay ku leeyihiin magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Puntland weli si rasmi ah kuma hadlin xariga loo geystay culimada iyo ganacsatada iyo waxgaradka ee la xiriirta in ay magaalada Gaalkacyo qayb ka mid ah ay looga dhaqmayo shariicada Islaamka. halkaad warkaasi daawadayaal aad kala socotaan waa warbaahinta xogta dalka imikadan akhbaaraadka caalamka. haddaba janaalkeena haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar, like-na noo dheh, share-na noo dheh. mahadsanidin. dowladda dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku xirtay dalkeeda gabar u dhalatay wadanka Iran. Khadija Mawun ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu xiray gudaha wadankaasi, waxaana la tilmaamay in gibi ahaanba dhibaatooyinka kala duwan ay hadda ay mar kale dowladda dalkaasi Mareykanka ay doonayso in Iran ay ku dacayadeyso ay kor u sii qaadayso. waxaana maamulka Trump horey loogu eedeeyay in ay talaabo kala duwan oo qaldan marka qaarkood ay qaadayso. arrinkaasna waxaa la sheegay in wax waliba loo baahan yahay in laga hortago. warkii dunida daawadayaal aad ka dhageysanaysa warbaahinta xogta dalka waa nageynta.